يوكو واجبا هرت صومك هرت يوكو واجبا كو صومك وحكو واجبا أولا شرط يوجوه الرأي هرت قفك وإنه يهي قف مسلم قف مسلم إنه يهي وشرط قفك قالك قالك وقام بالله بإن الصوم لكن وحنو كب الله بإن مركه هرت التوحيد كسوقل وحرد إسلامك سوقل أيانو لنا مركه قفك قالك الصومك والله عقابي آخره مركو دنتو قالك والله عذابي لكن هذا وحكاه الرأي توحيدك وحكى له شرط يقفك صومك واجب أن يكون بالغا وإنه قانقار يهي هدو قفك عرور يهي ولي أسان قانقارين صومك واجبك معها وحكى له شرط أن يكون عاقلا قفك وإنه عقل لي يهي قف قانقاره وين أو حجر إسكوالا أو ميركي يمسكحدي حد التكليف أما مناض التكليف وحا الشريعة با قفك أي كلا خدابته أما أي كلا هذا شو عقلك عقلي تكليفك وكحرنا هدو قفك وايو أو إسكوالا يهي صومك وحبه واجبك معها سيداس أوغي دادك والوالا يعني قريها قاركود جوغا أما مقالة مريا وحكو واجبه يمالي لا قضاء ولا فدية إنه هدو هدي إلهي مسكحدي سأسو علينا يعني لغا مرة وح قضاء وح راشنا أو كو واجبه يانا مجران وحكا له شرطي أن يكون قادرا على الصوم قفك وإنه صومك أود إليه وحجر قف مسكحدي سجوكته أو يعني هدنا قانقار لكن صومك أنا أود إليه عذر دار جرى شر أوجد وأود وحوي سجن أود إليه أما الشرعي مركي الله في ريو جانب كشرعي أيوسن بأود إليه مثلا قفك تصار وإسكحن سنية قفك هدو إسكحن سنية هاي صومك واجبك معها haddii sidaas oo kale musaafir uu yahay qofku oo mashaqada safarka iyo dhibaatada uu dareemayo dhibaato safar isagana soomku waajib kuma aha laakiin waanu ka hadli doonaa qofka xanuunsan xanuunkiisa waxa loo kala qaadi laba arimood xanuunkiisa inuu yahay xanuun dhakhaatiirtu ay ka dayriyeen oo la yiri xanuunkani lagama bogsado xanuunkan lagama bogsado la yiri tusaale ahaan qofkii kaan ka galay caloosha ama wuxuu ka galay yani dhuuntu ka galay hungurigu ka galay meelaha halisaha kaan kara uu ka galay ama waa qof lambarka yani xanuunkan la yiraahdo sonkorowgu lambarkiisu uu ku weynaaday oo awood aan u lahayn inuu soomo xanuunkan sonkortana lagama raysto sida dhakhaatiirtu ay sheegaan ilaahay laakiin subxaanahu wa tacaala awoodiisa iyo karamkiisa iyo fadligiisa wax walbo alla awoodaa subxaanahu wa tacaala haddii xanuunada noocaas oo kale ah oo dhakhaatiirtu ay leeyihiin qofkani daawoba ma lahan bixasabi cuquulihim وبحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم القليل وعقوشوا ذي عقل وذي علمك إلهي أوسيي مركي عبران أي دخاتيرتو شاقان قفكاني إن عذر كان أسان كبك سنين قفكاسي وحال قبحنا هي راشن ومالي والبو وحال قبحنا هي هل كومبو وكومبودنا أي كو قرانتهاي CBC أي كو قرانتهاي halka koombo raashina ama han noqoto digir ama galley ama bariis ama qamadi ama sarreyn yani raashinkana waxa loo baahan yahay inuu noqdo raashin aan shiidnayn alhabbu salim ayaa laga bixinahay sida gadaalba aanu ku sharxi doono insha Allah taala qofka hadii cudur sharciihu uu yani ku istaago sidaas oo kale soomka isaguna waajib kuma aha tusaale ahaan haweenaydii وقف يعني حائضة وديك حيد كاكي حيدا كسعودة أما وقف النفساء هو أمولي كجرتا كبدا أيضا الصوم واجب كماها لكن لبدا بوحا واجب كن قنايا إن يدب كسو قضيان ومركو ديقو أي كقبيستو أي واجب كن قنايا إن يسو قضيان سيدا كذال أنو كأوغان دونو أو أنو كفافاهن دونو إن شاء الله تعالى وحمرك مهم inaanu ogaano mar walbaba oo ahkaamta soomka kamida soomka wuxuu iska leeyahay yani waxyaalo laga maarmaan ah oo inaad sameeyso mar walbaba ay muhiim tahay hadaadan sameeyna soomkaagu uusan ansaxaynin koo waxa ugu horeeya an-niyya soomka hadaadan niyeysan wax ku ansaxahay ma jiraan niyadaas waliba waxa loo baahan yahay habeen kasta waa niyya mutakarrira
في كل ليلة من ليالي رمضان هبين كستا أو هبين نذر رمضان ككمدة وإن نيستو رمضان بري إن تسومي دونت هبين كي كلام مركز قارتي هذا هو إن نيستو هذا نيدي هالمانتو نيدي هذا هالمانتو تصالحان وآدم بالنيسان بري إن تصومتو نيدي قلبي كما آدم قبنن بري إن تسومي دونتو هذا مركز واجب كقول نقنا يا وحلو يقانو الإمساك إمساك محيطه sidii qof sooman oo kala dhaqankiisa inaad u dhaqanto waxna ma cuni kartid waxna ma cabi kartid xaaskaaga uma tagi kartid qof sooman oo kale ayaad xagga sharciga aad ka tahay mana soomanid oo soomkii de niyadii ayaa ka maqan oo ahayd yani rugni asaasi aha maalintaasna waxa waajib kugu noqonaya niyada aad halmaantay inaad dib ka soo qadayso taasna waxa tusinaya xadiiskii Abu Daawud iyo Tirmidhi labadooduba ay warinayeen oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu ku yiri man lam yujmi' qabla al-fajr fala siyama lah salaada fajrka ka hor salaada subax intaysan dhalanin ka hor qofkii aan dhageysan qofkii aan niyeysan soomka inuu bari soomi doono aan niyeysan wax soomo ka ansaxaya ma lahan uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam xadiiska Abu Daawud iyo Tirmidhi labadooduba waxay ku wariyeen sunanka ayay ku wariyeen sidaas awgeed niyadu waa laga maarmaan haddii qofku uusan niyeysanin oo soomkii inuu berri soomi doono uusan niyeysanin dadka qaarkood waxaanu aragnay inay niyada ay iska fududaysanayaan oo waxa niyad la yiraahdo habeen walba in la niyeysto soomka aysan bal la socanba waxay la mid tahay xadiiskii Xudayfa ibn al-Yaman ninkii agtiisa salaada ku tukanayay oo dhahay 40 sano salaada tukanayay saxaabiguna uu ku yiri saa hadad ku dhiman lahayd jid khaldan oo jidkii nabiga khilaafsan ayaad ku dhiman lahayd sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi marka niyada nafteeda waxa shardi ah an takuna jaazima niyadu waa inay tahay niyad labac iyo shaki waa inuusan kaaga jirin haddii niyadu shaki uu kaaga jiro de go'aan ma qaadan kartid haddaadan go'aan qaadan niyadaadu ma ansaxayso niyadu haddaysan ansixinna soomkaaga ayaan ansixin tusaale ahaan qofku habeenkii Shacbaan uu 30 ahaa ayuu wuxuu ku shakiyay berri tolow Ramadaan bilowgiisii miya mise waa 30 buuxadii Shacbaan ayuu ku shakiyay berri markaasuu wuxuu qalbiga ka niyeystay كل واحد يستوي هذي رمضان نقطنا إن صومه هذي سن رمضان نقطنا أو شعبان لما يستركي ساي نقطنا هذي ما بسومه يمركا ساسو هبينكي وكجفت نيدا قانك جازمة أنا هين أيو كجفت بقدرة الله بريدي رمضان يبان نقطي وحبك مجرى نقف كصوم كيس لكن وحكوا واجبة يا إمساك حرمة للشهر رمضان سبيش رمضان الله حشمايو وإنه أفايستو oo cunto iyo cabitaan iyo waxba ma sameyn karo maalintaana inuu dib ka soo qadeeyo ayaa waajiba limaada maxaa dhacay niyadii jaazima ma aha ma go'na niyadii niyo jaazima oo yaani go'aan qofkani uu ku gaaray ma aha sidaas awgeed waxaan mar walba laga maarmaan ah in aan niyada jazmino oo wax shakiya niyadu aysan nooga jirinin waxaa marka muhiim ah haddana نقطة كلا إن ندل استعجنا أما أنه أوجانو أي واجب تهاي صوم قرم باللوضة بداية الصيام صوم كوحو باللوضة هي من طلوع الفجر وحنا كل ماذا غروب الشمس فجر كمركور دشو فجر كمركور دشو بسو إحنا معوني كرتيد وإحنا معبي كرتيد حاسكاغو وما تيجي كرت وحيالها يعني نواقض الصيام او دنا صومك بريور دن ما تابن كرتيد واغو يعني صلاه الصبح ما فجركم مركو دش وحيالها اد ويدينتا مالمهن ugu batay oo dadku as'ila iga soo weydiiyaan waxa kamida oo dadka qaarna ay u iftoodaan laakiin fatwa khaldan ah dadka qaar waxay ku leeyihiin war sheekhow salaadii subaxa ayaa aadaanku nagu dhacay inagoo suxuurtii gacanta kula jirna ama weelkii cabitaankii caanaha anagoo kor u hayna
ayaa waagu korkeenna ka dilaacay oo salaaddii subaxa ay nagu dhalatay ama aadaankii hore uu nagu yeeray dadka qaaraa waxay noo jawaabeen bay yidhaaheen inaannu iska sii dhammaystiran karno raashinka waxa ku jira ama galaaska inta nagu jiro oo cabitaana caano ah inaannu dhammaystiran karno jawaabtaasi walaalayaal waa khalad salaada subaxa hadday dhalato wax aad dhadhamin karto ma jiraan waa kaa xaaraan maxaa yeelay soomkii ayaa bilowday soomkii ayaa bilowday dadka sidaa u iftoonaya dadka cawaamta ah waxay ku khaldanmeen xadiis fahamkiis xadiiskii abu hurayra ee abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay ayay si khaldan u fahmeen xadiiskaasina wuxuu ahaa xadiiskii nabigu uu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam إidaa samica axadukum الnidaa wاlinaa'u calىa yadih falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatah wuxuu yidhi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam qofku hadduu aadaanka maqlo isagoo weelka gacanta ku haya weelkii yuusan ka tegin ilaa uu ka dhammaystirmo oo weelkii uu ka dhammaystirto xaajadii iyo dantii uu ka lahaa ilaa uu weelka ka gaaro danta uu ka lahaa weelka maxay tahay inuu cabitaan yacni cabo cuntadii inuu inta maaragtay isagu uu ka rabo uu ka cuno ilaa dantiisii uu weelka ka dhammaystirto yuusan weelkii ka tegin xadiiskaas abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey waana xadiis abu hurayra uu rasuulka ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalam haddaba xadiiskaasi wuu jiraa laakiin xadiiskaas macnaha ama mafhuumka loola jeedaahay muxuu yahay waxaa noo caddaynaya imaamu lbayhaqi kitaabkiisa sunanka waxa loola jeedo xadiiskaa anigu ma rabo inaan ra'yigayga ama maskaxdayda aan ku fasiro imaamu lbayhaqi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi markuu xadiiskaa uu kitaabkiisa sunanka ah uu ku wariyey wuxuu yidhi wahada insaxa maxmuulu cinda cawaami ahli اlcilm calى annahu salى اllahu عalayhi wasalam calima annahu yunaadii qabla طuluuci اlfajr bxayثu yaqacu shurbuhu qubayla طuluuci اlfajr liyakuuna muwaafiqa lxadiiثi caaئisha wabni cumar qaala wacalى hada tattafiqu alأkhbaar wuxuu yidhi bayhaqi wuxuu ogaa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam aadaankaasi inuu ahaa aadaankii hore inuu ahaa ayuu rasuulku ogaa salى اllahu عalayhi wasalam oo mu'adinkaasaa wuxuu addimi jiray yacni fajarka ka hor maxaa yeele sida la ogsoon yahay xilligii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam laba mu'adin ayaa masjidka nabigu lahaa salى اllahu عalayhi wasalam marka mu'adinka hore aadaanka hore markuu ku dhufto weelkiina gacanta uu kugu jiro cuntadii ama cabitaankii iska dhammaystiro wey maxaa yeele lama gaarin aadaankii kaa joojin lahaa suxuurta marka aadaanka nabigu uu leeyahay salى اllahu عalayه wasalam weelkii hadduu gacanta kugu jiro dantaada ka gaar dantii weelka aad ka lahayd ka gaar uu leeyahay waa aadaanka hore oo xilligii salaadii subaxba aan la gaarin aadaanka ka hadlaya amaa aadaanka dambe oo salaadii subaxuba yacni ka tarjumaya inay dhalatay loolama jeedu yidhi xadiiska sida bayhaqi uu yidhi maxaa yeeley wuxuu yidhi waxaan sidaa ugu fasiraynaa si uu u waafaqo xadiisku xadiiskii caaisha iyo xadiiskii cabdullaahi bni cumar oo uu tilmaamay rasuulku salى اllahu عalayه wasalam aadaanku hadduu yeero inaan waxna la cuni karin waxna la cabbi karin sidaasayna wuxuu yidhi labada xadiis ay isku waafaqi karaan marka dadkan ma aysan arkin tafsiirka bayhaqi fii sunanihi uu xadiiska uu ku fasiray markaasi dadkii waxay u jawaabayaan aadaanka ugu dambeeya salaaddii subax oo dhalatay haddii weelkii adoo gacanta kuugu jiro salaaddii subaxa lagugu addimo iska dhereg oo iska wada cuntadaadii cabitaankaagii dee qofku uba quraacday maxaa soomaho u jira midda kale fatwadaas waxay ka hor iman hadalkaas uu ka hor iman naskii qur'aanka oo dhahayay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr iska cuna oo iska caba ilaa fajarka laga gaaro amaa fajarka haddii la gaaro cunto iyo cabitaan ma jiraan marka taasina waa in mar walbaba aanu ku baraarugno waxaa kaloo loo baahan yahay nuqdada kale oo aanu dul istaagno aanu doonayno waxaa weeye fajarka dhalashadiisa waa in aad laysaga hubiyo
oo aad laysaga dadaalo.